الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركله iyo barnaamijkeeni suugaanta ay noo soo diyaarisay barnaamij aqooneedka daaris waxay inoogu joogtay inaga oo kalkii hore ku soo afmeernay ama soo gabagabeynay qeexidii maasada. Eega waxaan u gali doonaa bal qaybaha maasada. Marka qaybaha maasada afar qaybood baa badi loo qaybshaa oo ay ka mid tahay maanse geed, maanse gole, maanse guri iyo maanse gaban. Afartan qaybood waxay la xiriiraan habkii ay bulshadeennii hore u dhaqanayd ama ay goobihii laga kala heli jiray oo dadkeena waxa la oran jiray saddex waa geed joog, gole joog iyo guri joog. bulshadeenu saddexdan ay u qoobay maadee xilli nolosheenii raacatadii reer guraaga iyo miyiga waa geed joogo waa waayeel iyo wax garad. geedkuna wuxuu ahaa halka bulshada looga arrimiyo ee talada bulshada laga gooyo. gole joogu waa dhalinyarta oo ama golaha hawleed bay joogaan ama golahaasi way joogaan. guri jooguna waa dumar iyo caruur oo caruurtuna kambal aan ka guriga aan ka fogeyn bay maqasha iyo ku raacdaa. dumarkuna gurigay joogaan oo hawsha gurigay qabtaan oo de nolosheena waa saa u qaybsaneed oo raguna hawsha wixii dibadda ka gurigay qaban jireen, haweenkuna wixii guriga ah. marka maasada lagu saleeyay qaabkii dadkeena hore ahaayeen maanse geed, maanse gole, maanse guri, maanse gaban. marka geedka marka la leeyahay waa maansadii geedka laga tirin jiray oo waxyaabo de waa geedku waa gabayga Cali Jaamac Xabil waxa ku jira Allah u naxariiste gar adkaatay xaajada guracan guurti kala maagtay hadii geedka la isugu yimaad golaha waayeelka. geedka waayeel iyo wax garad baa joogay. waxay u joogeenna waa maray waxyaabaha bulshada dhexdeeda kaga tashanayaan iyo marde gurigiina haween looga yimay hawshoodii ku haystaan golihiina dhalinyaro ku maqan tahay oo waa margeed hawl lagu hayeeyo marsidiisa ma aragtay wixii bulshada maxaa soo kordhay, maxaa laga arrinsanaya, maxaa laga tashanaya. maansooyinka geedka ku soo aroray waxa kamid ah wiilwaal gabaygiisii garbidaan ku tiirsaday rag inuu garab maraan sheegtay gacan iyo in geed laga hadliyo gobonimaan sheegtay. marka geedka hadalnimadu waxay muujinaysaa de geedku waa halkii mudanka iyo maqaawiirtu ku kulmayeen. maasadii Axmed Awgeede waxa ku jiray geed jooga ma soo gaadhay gayigo geed joogayaasha iyo guurtidu u taliso gudoonkuna mid quraya. markuu leeyahay waa geed joogayaasha iyo guurtidu u taliso. maasooyinka isla geedka ka warramay maasadii gurmada gaariya waxa ku jiray waxa geed lala kacaa gadaa tahay ereylada ah. macnaha de markaad geed joogto macnaha geedkuna waa goob de waayeel iyo wax garad. mahmaha labadeeda mid kamid ah waxay tahay laba geed ma wada tagaan gar iyo gaashaan geed ma wada tagaan bal oo gar iyo gaashaan geed ma wada tagaan loo jeedo geedku maadaama uu yahay mar meel lagu garnaqsado, mar meel bulshada looga taliyo, mar de meel hawlo badan qabto waayeel joogon goob colaadeed ahayn. labada nin ee garnaqsanaya mid waran iyo gaashaan geed la yimi inuu doodo umu imane inuu diriru u yimid macnaha baa laga wadaa. gar iyo gaashaan geed ma wada tagaan. dadkeenu dad aad u caqli badan bay ahaayeenoo waxay oran jireen cag dalabla carab dalabla baa laga garan ogyahay oo wardhafo. dee nin iyadoo loo balansayay in geed la yimaado lagu garnaqsado labadii nin mid muducigii ama muducalegii markuu waran iyo gaashaan la yimaado dee hebel oo malaha doodu ma socotida diriir baad socotaa. geedka
marka geedku wuxuu ahaa goob caynkaas oo dee guurarkeena ka ugu mudan waa talaydhaa geed fadhiisi oo waxay ku tusinaysaa waxa geed fadhiisi loo yidho guri fadhiisi loo dhan waayo geedka iyo hawshii lagu hayay qiimuhu lahaa markaa maansada geedka waxaa ka mid ahaa gabayga iyo geeraarka iyo masafada oo weliba uu gabaygu laf dhabar u ahaa inta badanna gabayga waxa lagu sheegi jiray waxa muhiimka ah oo geedka marka la joogo maansada gabay iyo geeraar baa ugu mudnaa masafada marmar soo raacisay iyadu ma badnayn laakiin muhiimadu gabaygay ahayd gabaygana inta ugu badan waxa lagu sheegi jiray dee marka geedka hawl lagu haya hawsha geedka lagu haya waxay noqon kartaa nabadayn bay noqon kartaa waxay noqon kartaa waaniya dardaaran bay noqon kartaa waxay noqon kartaa guubaabo iyo dagaalgelin bay noqon kartaa hawlaha geedka lagu hayo ayaa markaa gabayguna iman jiray marka shir la fadhiyo la rabo in cid la heshiisiyo anaa mudan anaa midha ku dheer leh hormari maayo wax yaroo la maarayn karaa mariyay reebele iyagana magoolkii ka dhimay magaca weynaaya annagana mankii laga idlaamiiganaan jiray marun bay masiibadu dhacdaa maanta kala hoyda hadoo fiirso waa dee geedkii lagu shiray waxaa ka mid ahaa dee nin suldaan ahoo ugaas xaash ugaas faarax oo ina afay lagu naaleysi jiray baa isagana loogu ballamay in shir beeshu lahayd dhibta uu dadka ku haya loogu sheego deedna geedkii iyo goobtii la joogay gabayadii laga tiriyey dubad hirad nuur nin loodhan jiray daruuruhu colaada oo adduun waa isdaba jooge dayrtii iyo gugii laydho waa isdaba maraysaay nin haddii la dila naagta waa laga dumaalay durba waa kibraasada ninkay dacal ka saartaay hadduu duubi buuxsamo inuu daato waa u halise ka dambe rag waa kii tashaday dooxadii dhababe gabayo ugaas xaash lagula hadlayay oo dubad hirad nuur gabaygiisa waxaa ka mid ahaa gabayo 7 aan malaynay in hayno halkaa laga tiriyo ugaaska lagula hadlayay gabaygii caanka ahaa ee sinaan oo isla kusoo halqabsanayo saahid qabaan cali dubadow nin maasoodi yidhi waa imoog yahay way iga madoobay tan iyo maalintii sirawe mijagooyo siduu noogu dhacay maagistee dhigaya haddaan maago waan maamiya haddaan ha yeeshe haddaan maago waan maamiyaa gabaya iga maqal halaan xalay mirkacay ama la maansooday waa gabay aada u culus oo ay xagga dambe kaga jirto masalaha ninkaan ii dhigayn midig ma saarayo ninkii aniga iga maarmi karo uma muraad yeesho musaga ina afay galo arlada kama miciin moodo waa gabayga ku jirta ereyada culus ee ahaa 3 magacalee xaajada leyma maransiiyo marka geedka ahaa meel wax badan lagaga hadlo markaan leenahay marka gabaygu uu ugu culus yahay badi suugaanta waxaba dee gabayga la yiraahdaa gabaygu waa boqorka maansada 4 qodob buu gabaygu boqorka maansada ku noqday miisaankiisa oo 18 ilaa 21 oo aan ku soo qaadanay qaybtii hore inagoo gabayga miisaamayna 4 qodob ee gabaygu miisaankiisa oo 18 ilaa 21 gabaygu waa 2 dhacaa uu 3 dhacaa uu 4 dhacaa markaan leenahay gabaygu uu 2 dhacaa tuduc kasta waa inay 2 xaraf soo galaan oo isku mid ah rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay oo tolnimo meertan noo tahay aan waliba kaga meel cadahay miidhsa diidani waa 2 dhacaya waxaa ka mid ah 3 dhac oo 3 dhac gabaygu markaa 2 kama yaraan karo halka qaybta kale ee heesta iyo jiiftada iyo ay hal mar ka dhacaan ama xarafku hal mar soo galo ayuu gabayga 2 jeer 3 jeer ugu badnaan 4 jeer soo gala oo heesta iyo iyada marun buu soo galaa hooyo ilaa anta adduunyada hubaashi tuduc kasta hal mar buu soo galaa inta hal mar qoranta gabayga laakiin tuducay 2 jeer 3 jeer hirdi madaxa haan koobsiga cidida qalanja heeraaya oo fiirso garadkaatay xaajada guracan goorti kala maagtay 3 wada socda oo 3 xaraf raaco inta badan 3 xaraf oo isbarbari ay isdhinac yaalo tudcii soo galaya ayaad halkaa ku arkaysaa xareed awdka dhoobada xergagan haama ku xamaynta xatooyada isdabaxiinka iyo xaaji qiran waaga
rag xaftiyo xigtoodaba kamaal oo xunba u reebta haddaad qorto waa min 3 xaraf baa ku jira xatooyada isdabaxiinka iyo xaaja qiranwaaga xareed awdka dhoobada xergegan haama ku xamaynta rag xaftiyo xigtoodaba kamaal oo xunba u reebta xodayga iyo xangeeyowliskiyo xoor dusha u saarka waa gabayga xulub socodee dhoodaan marka waa 3 dhacaa haddaan caynabow col iyo guluf caata kugu raagin 3 baa tudcii soo geliya halka kii horena 3 ka soo geliya xulub socod waa gabayada ugu cajabta badan ee arkay 3daasi meelo badan ku soo noqdaan isaga gabay sayidku lahaayo gabaygii markii geeli minan laga dhacay fardaha uu lahaa kun caynaba kun oo faarbulaa kuman cawaasiira gabaygii caynka ahaa uu 4 dhacaa tudcii 4 xaraf oo isku mid ah soo galaya kun iyo kow dumar kurtood haddii laysu wada keeno kun iyo kow dumar kurtood haddii laysu wada keeno waa gabaygii sida koorta iyo cubaal sulay raagowgaas soon iyo salaad iyo sakada sadaqadii diinta waa 4 dhacaya xasan iyo xuseen iyo xirsaa kaa xasuus badan waa 4 leh marka 4 xaraf oo isku mid ah tudcii soo galaya waa gabaygu waa boqorka maasada markaan leenahay isagaana inta badan gabayga waxyaabaha muhiimka ah lagu sheegi jiray qofku ama cid gaar ah la hadlo ama tolkii ha la hadlo maasada geedkana waxa kamid ah taa Allah u naxariistay ninkii la oran jiray Cabdullaahi Muuse baa ku kula hadlayay Cabdullaahi Muuse ayaa ninkii la oran jiray Yuusuf Cabdullaahi Muuse gabaygiisii haddii dunida lagu waariyo la isu deynayo waxaan laga dilay nabiyadii la isu soo diray daaha ku noolaan lahaa degaladoodii anna waxaan daliishaday inaan laga dambeynaynin waa gabay uu tolkii ku gubaabanayay iyadoo geedka la joogo shisheeyuhu hadduu idin danqaro dogob u nooleeya ragidaaya kaagama durkee dab u fagaareeya meeshii daleelaa muskaba bahal ku doontaaye duldhabaha wax loo saaraya ayaan dugaag marine isdugsada walaal kala durkaa degan abiidkiisa markaa dee weeshiisii buu geedka kula hadlaya markaa maasadii geedka marka la leeyahay waa maasadii geedka ay ka tirinayeen waayeelka iyo waxgaradku markay ku guda jiraan hawlaha ugu weyn inta kalka ku xiga iyo qaybaha sharaxaadooda u galayno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh